sida la fahamsan yahay warbaahinta reer galbeedka waxay falanqeyntooda siyaasadeed guud ahaan u janjeertaa aragti inta badan diiradda saaraysa una adeegaysa danaynta tooska ah ee dowladahooda iyo shucuubtooda noocyadan falanqeynta ah ayaa hadda waxaa loo langelinaya fahamka dabeecadaha rasmiga ah ee xiriirka carabta ee ku wajahan ruushka shiinaha iyo mowqifyada siyaasadda caalamiga ah iyo khilaafaadka adduunka haddaba maadaama falanqeynadan ay inta badan qaabeeyaan danaha reer galbeedka waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa si weyn loogu tiirsanaado fahamka reer galbeedka ee isbedela juqraafiyeedka adduunka waxaase hubaala in haddii la raaco la marin habaabayo warbaahinta reer galbeedka waxay rabeen in la rumaysto mowqifyada siyaasadeed ee xooggan ee ay qaateen waddamada carabta ee ah dhexdhexaadnimada kiiska dagaalka Ukraine u dhowaanshaha sii kordhaya ee Shiinaha iyo Ruushka hoos u dhigista wax soo saarka saliidda iyo wixii la mid ah in loo samaynayo oo kaliya dhambaal loo dirayo Washington ama waddamada galbeedka si loogu ciqaabo faragelinta arrimaha gudaha ee carabta laakiin marka lagu eego microscope ka ballaaran aragtidaasi mala'awaaladaasi qayb ahaan run ayay noqon karaan ama gebi ahaanba waa been abuur tusaale ahaan go'aanka waddamada OPEC Plus ee lagu dhimayo wax soo saarka saliidda ee qalinka lagu duugay 5 Oktoobar ayaa ahaa xeelada kaliya ee macquulka ah ee lagu dabaqi karo marka baahida tamarta ee suuqa caalamiga ah hooseyso intaas waxaa dheer dhexdhexaadnimada carabtu waa hab macquul ah oo isku mid ah iyada oo la tixgelinayo in Washington iyo xulafadeeda reer galbeedku aysan ahayn quwadda caalamiga ah oo kaliya ay wadaay ka dhigan karaan carabta sidoo kale waxa aan dhab ahayn in xiriirka sii kordhaya ee bariga dhexe uu la leeyahay Asia siiba Shiinaha uu ka dhashay dhacdooyin dhawaanahan dhacay balse waa geedi socod soo bilaabmay ku dhawaad 20 sano ka hor gaar ahaan sanad kadib duulaankii Mareykanku ku qaaday waddanka Ciraaq sanadkii 2004 Shiinaha iyo jaamacadda Carabta ayaa aas-aasay madasha iskaashiga Shiinaha iyo Carabta madashaas waxay si rasmi ah u matalaysay dawladda Shiinaha iyo dhammaan 22 xubnood ee jaamacadda Carabta iyada oo ugu dambeyntii u adeegtay sidii masraxa ugu muhiimsan ee isku xiraya labada dhinac tani waxay Shiinaha siisay faa'iidada uu ku maalgelinayo istaraatiijiyad wadajir ah si uu u horumariyo xiriirka ganacsiga dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dunida Carabta oo dhan dhanka kale carabtu sidoo kale waxay lahaayeen awood ah inay Shiinaha kala xaajoodaan heshiisyo dhaqaale oo waaweyn oo suurtagal ah inay ka faa'iideystaan wadamo badan oo Carab ah isku mar xiriirka Shiinaha iyo Carabta ayaa ilaa maantadan waxa uu ku socdaa qaab wada danaysi ah iyadoo aad u yar tahay ka weecashada halbeegyada lagu jaangooyay unkida madashaasi taasoo xoojisay sheegashooyinka ah in dabeecadaha siyaasadeed ee Carabta iyo faragelin la'aanta Shiinaha ay isla falgeli karaan tani ma aha inay soo jeedinayso in xiriirka Carabta iyo Shiinaha ee Mareykanka iyo reer galbeedka aysan saameyn ku yeelan nooca xawaaraha xiriirka Shiinaha iyo Carabta runtii qaabka Shiinaha ee nabad ku wada noolaanshaha wuxuu u muuqdaa inuu caqabad ku yahay howlaha ay reer galbeedka horaan uga wadeen bariga dhexe sanadkii 2021 Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay mashruucyo uu ku dhisayo 1,000 iskuul oo ku yaala dalka Ciraaq warkaas oo qabsaday warbaahinta Carabta isla sidaas oo kale ayaa laga sheegi karaa dhaqaalaha sii kordhaya ee Shiinaha ma aha oo kaliya ganacsiga ee sidoo kale saameynta uu dalalka Carabta ku leeyahay hindisaha Shiinaha ee loo yaqaan Belt and Road Initiative oo loo soo gaabiyo BRI oo lagu dhawaaqay sanadkii 2013 waxa uu si aan kala go' lahayn ugu habboon yahay kaabayaasha siyaasadeed ee xiriirka Carabta iyo Shiinaha kuwaasoo la dhisay sanado hore sidee laga soo xigtay wargeyska Sharq al-Awsat xukuumadda Riyaad ayaa ahayd maalgashiga Shiinaha ee ugu weyn ee mashruuca BRI intii lagu jiray qaybtii hore ee sanadka 2022 laga bilaabo bishii Maarso Sacuudi Carabiya waxay ogolaatay mabda'a ah inay saliideeda ka iibiso Shiinaha iyadoo la isticmaalayo lacagta Shiinaha halkii la adeegsan lahaa dollarka Mareykanka marka la dhaqan geliyo go'aankani waxa uu saameyn aan ka soo noqod lahayn ku yeelan doonaa suuqyada caalamka balse waxa uu sidoo kale saameyn ku yeelan karaa heerka mustaqbalka ee lacagta dollarka iyadoo loo malaynayo in isbedelada noocan oo kala ah ee geopoliticska caalamiga ah ay yihiin natiijada baahida degdega ah ee Carabtu inay fariin soo diraan waxay sii wadi doontaa inay wiiqdo awoodda reer galbeedka si ay si dhab ah u qadariyaan in isbedelada socda ma aha oo kaliya bariga dhexe laakiin adduunka oo dhan ay qayb ka yihiin wareegyada joogtada ah ee khariidada siyaasadda caalamka
iyadoo la tixgelinayo arrimahaas oo dhan waxaa cadaalad darro noqon doonta dhab ahaantii marin habaabinta ah in la soo bandhigo hay-adaha caalamiga ah ee waaweyn ee siyaasadeed sida Shiinaha iyo dalalka Carabta oo la isku daray oo qaabeynaya ajandayaashooda siyaasadeed ee arrimaha dibadda oo waliba ka fekeraya mustaqbalkooda in loo rogo kaliya falcelin siyaasadeed oo ah fariin ku socota Mareykanka iyo reer galbeedka. waxaan intaas ku hakinaynaa tabinteena Tafaftir Media waxaad ku mahadsantihiin waqtigiina waxaan idinka filaynaa inaad nagu xirnaataan inta ka horeysana waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.